siyaasaddu khayaano ma aha, siyaasaddu been ma aha, siyaasaddu ballanka bax ma aha. waa markhaantiga nool. xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro, ma doonayno hal maalin in lagu daro. isagu markhaanti uma baahna, cid kale in loo doono uma baahna, keliya wuxuu u baahan yahay hadaladii hore uga tegay in dib loogu daaro oo loo dhageysiiyo. waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo. waa caado xun, maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto. ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo, ma aha. sidaas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas. marakan waxa uu sheegayaa inuusan isbedelku ahayn wax fiican. marka isbedelka naftigiisa waa qayb ka mid ah dib u dhaca dalka. fiidiyowga sii share garay oo la wadaaga asxaabtaada. janaalkayga haddaad ku cusub tahay subscribe saar, page-kayga follow soo dheh, like iyo comment-gana soo badi bahalaha iga dhintay. haddii ninka madaxweynaha uu barnaamij ku keeno dan guud, waa inuu keeno qof ka fiican, ma aha inuu raadiyo qof xun ama qof liito inuu keeno, ma aha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلشدة الصومالية دورن وسلامي. ما أنت وحن إذين سدا مدحوينها حلقيسي لماذي حكم كوسي لجن محمد عبد الله فرماجو أو استغينية. وضيقو ومرخانتي النول ومبهنا إن عدلو كانوا أو أيكم مرخانتي فرتو كلية وحبها هي هذا الذي هو يقتجي إن دبلو دارو وأكم السياسي. maxay tahay siyaasaddu? waa isaga oo inoo sharaxaya markii uu musharax ahaa oo uu baarlamaanka ka codsanayay inay codka siiyaan. waxa uu leeyahay siyaasaddu been maaha, siyaasaddu khiyaamo maaha, bal ila dhageysta waa kane. siyaasaddu waa xal raadin, siyaasaddu khiyaano ma aha, siyaasaddu been ma aha, siyaasaddu ballanka bax ma aha. meel ay adduunka ka jirtana ma laha, adduunkana kama jirto. diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo. waa ceeb weyn. waa farmaajo oo xilliga kan madaxweyne ah oo xukunka haya. waa 2019 khudbad uu soo jeediyay waxa uu ku sheegayaa inuusan wax muddo ah ku darsan doonin, isaga oo sheegay muddo kordhintu inay tahay wax xun, isla markaana aan loo baahnayn jidka in la furo, oo ay tahay maalinta ay doorashadu ku astaysan tahay in muwaadin kasta uu garanayo si ciddii markaa doonaysa inay talada dalka u tartanto ay ugu soo xisaabtanto oo maalintaas ay u soo baratanto. waa kane bal dhageysta. walaalayaal, waqti ku darsasho iyo waqti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan ma aha. waxaana loo baahan yahay haddii waqti qof walba la doortay waqti uu weeg yahay, hadduu yahay dawlad goboleed iyo hadduu yahay dawladda federaalka, xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro, ma doonayno hal maalin in lagu daro. maxaa yeelay waxay abuuraysaa kalsooni darro, waxay noqonaysaa xarig furtay. haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha. sidaas darteed ma aha wax qof gaar ah loogu dan leeyahay, laakiin waa inay noo noqoto xeer. hadday tahay dawladda federaalka inaysan waxba ku darsan, hal maalinna ku darsan. hadday tahay dawlad goboleed hal maalin inaysan ku darsan. qof alla qofkii markaas doonaya election uu ka qayb galo ha ogaado waqtiga sax ah oo electionka jira uu isku diyaariyo marka ummadana kalsooni dhexdooda laga abuuro. waa kan misana farmaajo isagoo 2020 bishii February waraysi siiyay telefishinka Universal. marakan waxa uu sheegayaa inuusan isbedelku ahayn wax fiican, isla markaana loo baahnayn inuu wadanka isbedel ka dhaco. waxa uu sheegayaa marka isbedel dhacayo oo doorasho la qabanayo in qof loo danaynayo, qofka oo ula jeedo dabcan qofka la dooran doono. waxa uu ku doodayaa si waxa weeye wadanka deganaanshihiisa loo ilaaliyo in loo baahan yahay in cidda marka xafiiska joogto muddo dheer ay sii joogto, isagoo markaa dabcan hadalka u dhigaya hal iska kaydaayo aan xafiiska sii deganaade. waa kane haddana halayla eego. doorashooyinka 4 sano dhacaya waxay tahay dawladdu haddii prediction laga sameyn karo, la saadaalin karo waxa imaanaya, waxa weeye aaminkaagana waa fiicnaanaya oo cidda rabta inay wax kula qabsato waxay aaminsan tahay inaad joogayso ay kula shaqaysan karto. marka isbedelka naftigiisa
waa qayb ka mid ah dib u dhaca dalka waxaana loo daneeyaa markii isbedel dhacayo shakhsiga loo daneeyaa dalka looma daneeyo laakiin marka ay dawladdu isdaba joog tahay waxaa loo daneeyaa institutionska dawladda waxaa loo daneeyaa dalka loo daneeya waa farmaajo oo musharax ah wuxuu u khudbadeynayaa baarlamaanka Soomaaliya oo uu ka codsanayo inay siiyaan codka oo ay madaxweyne u doortaan waxa uu cambaareynayaa madaxda isaga ka horeysay oo uu sheegay inay badanaa u baxaan safaro dibadda ah isagoo carabka ku adkeeyay in bishiiba 3 jeer bal arkayo madaxweynaha oo baxaya waxa uu sheegay arinta inuu joojinayo isla markaana ay tahay wasiirka arrimaha dibadda inuu dibadda u baxo waa kane balil arka waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caado ay ka dhigteen in safaro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waa caado xun maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo ma aha saas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas farmaajo wuxuu noqday madaxweynihii Soomaaliyeed ee ugu safarka badnaa markaas waxa aad loo hadalhayay madaxda Soomaalidu inay aad ugu safraan Itoobiya madaxweynuhu muddadii uu xafiiska joogay 25 jeer buu Itoobiya u dhoofay xataa sanadkii ugu dambeeyay hadaan corona iman sanadkii 20ka maanta waxaanu ka hadli lahayn 40 jeer laakiin abay baa lafiisa uga baqo wuxuu yiri war corona ay keenine telephone aan ka wada hadalno sidoo kale hadda koornin baa wuxuu ku maahmaahay wuxuu yiri hebel ma ogey ha ma indhala ha dhagala'aan buu hadda ku darsaday madaxdii hore waxa looga cabanayay safaro ay Itoobiya iyo dalal kale ugu baxaan isagu wuxuu ku daray Eritrea oo horay madaxdeenu aysan u tagi jirin 6 jeer buu Eritrea tagay taniyo intii ay cilaaqaadka maxaa ku raahdaayay labada dal uu soo laabtay marakan waa farmaajo oo musharax sidoo kale waxa uu leeyahay wadooyinka in la xiro maaha wadooyinka magaalada oo xilligii uu musharax ahaa maxaa ku rahay dadku ay dhibaato badan ku qabeen laakiin runtii aad uga yaraa marka loo eego hadda sida wadooyinka u xiran yihiin waxa uu leeyahay wadooyinka in la xiro maaha hadii lafahayga aan u boqo wada aan xirayo ma jirto waxaan samaynayaa gaari beeba aban gadaal ka fuuli doona waxa kale bal dhageysta jidadkan la xirayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb kamid ah caburin haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weyneed yaan gadaal ka gali jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baabuurta ku raaxaysanayna xilliga wadada uu ka hadlayay waxay ahayd wadada madaxtooyada ka tagta oo airport aada oo mararka qaarkood madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ama madaxweyne ka horeeyay oo kale loo xiri jiray laakiin farmaajo intuu joogay wadooyinkii halbowlaha u ahaa magaalada oo dhan buu xiray oo iska dhaaf inuu tii furo wadooyinkii halbowlaha ahaa oo dhan magaaladu waa xiray waxa uu leeyahay haddii nabadgelyada wadanku ay hagaagi weydo oo aan lafahayga u boqo waxa weeye gaari taangi ama fuulaya gawaari qurux badan ma ku safri doono magaalada kuma marayo si wadooyinku idinku furnaadaan oo markaan marayo aan gaariga maxaa ku aan xabadu karin aan fuulo waa kan wadooyinkii isagoo xiray oo dadkii ka xiray oo gawaari qurux badan sa ugu lolaya waa kii lahaa gaari fiican ku socon maye goorma maxaa ku raadayay amaanka hagaajiyo waa kan gaariga maxaa ku raadayay quruxda badan waa kan uu ku xaragoonayo sidoo kale farmaajo xilligii uu musharax ahaa waxa uu ballan qaaday in qof kasta oo qarax soo sheega uu $100,000 siin doono isla markaana uu 1 milyan meel u dhigi doono bil walba si loogu bixiyo dadka qaraxyada soo sheega isla markaana dawladdiisu ay dhisi doonto guri kasta iyo hotel kasta oo al-shabaab ay dumiyaan sababtoo ah wuxuu leeyahay inaga deecnay oo dawladda maxaa ku raad amaanka isugu weeday waxa uu leeyahay dadka qaraxyada soo sheega dibadda u diri doona waa kan isagoo ka hadlay amuurta waxa wax looga qaban karaa wax yar yaan idin sheegaya waa sahal way 1 milyan oo dollar bishii meel loo dhigo qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya $100,000 in la siiyo haddii uu rabana dibadda loo diro dawladahaasi lacag ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keeno oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate gareyno waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteelo hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxay annaga ka masuula annaga ilaalin weyn nabadgelyadii
dadka ku dhinta inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhinta oo ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku raahdaa dhaqaalihii ay waalidkood ka heli jireen macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo ka soo horjeeda ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo dawladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dib ku dhaco ay daawaysanayso ama ay xuquuqdiisa siinayso waxa marxaati ka tihiin muddadii uu xafiiska joogay inay Muqdisho ka dhaceen qarxidii ugu badnaa inay ku dhinteen dadkii ugu badnaa inay ku burbureen oo ku basbeeleen hantidii ugu badnayd weli ma iidan arag hal qof oo qarax uu soo sheegay la leeyahay oo abaalmarin la siinayo sidoo kale weli iska dhaafutay la dhisay cariish dumay oo ay dawladdu leedahay qarax uu ku dumay oo dib baan u dhisaynaa lama adag sidoo kale dad ku dhintay oo dawladdu ay magdhow siinaysana lama arag waxaan la soconaa qaraxii Soobe masiibadii ka dhacday dadkii ku dhintay inay kun kor u dhaafeen wuxuu ahaa qaraxii ugu badnaa maxaa ku raadayay fal argaxiso inta dad la eg ay fal argaxiso maxaa ku raadayay ugu dhintaan wadankeena hooyo haddana hal qof oo magdhow la siiyo la leeyahay argaxisaa dishay lama arkin marka farmaajo isaga istuqaynaya isaga marxaanti isugu filan waa nin cajiiba waxaan maqli jiray hebel afkiisa iyo dhagihiisu malaha isma ay maqlaan sidoo kale farmaajo markan waxa uu sharaxayaa ra'iisul wasaaraha wadanka u baahan yahay waxa uu leeyahay waa arrin khaldan in madaxweyne kasta uu ra'iisul wasaarayaasha bedelo waxaan ka warqabnaa inuu ra'iisul wasaarihiisii muddada dheer la soo shaqeynayay si kadis ah oo maxaa ku raadayay qab ah uu ku bedelay waa kan isagoo arrinta ka hadlaya waxyaabaha dawladdan 16 sano la dhaqaaqi weyday waxa kamid ah isbedel aan macno lahayn dawlad kasta oo timaada oo aad doorataan waxay uga tagtaa meeshan iyadoo howlo qabyo ka ah waxay uga tagtaa saddex ra'iisul wasaare iyo sanad walba in dawlad cusub la keeno marka hal sano see wax loogu qabanaya marka waxa loo baahan yahay in arintaasi wax badan laga bedelo marka waxa uu sheegayaa in ra'iisul wasaaraha ay tahay inay madaxweynaha xilliga isla dhameystaan oo aan isbedel maxaa ku raadayay la sameeynin dabcan waxa la soconaa hadda goor nin sheekh waa la yiri bilan soomana laakiin afurkiiba baqt ku afuray waxa la soconaa in uu muddadii hore oo dhan dadaalayay laakiin sanadkii ugu dameeyay markii ra'iisul wasaaruhu uu yiri wadanka doorasho ka dhacdo markii uu yiri ma doonayo inaad ku darsato ama doorashada aad ku shubato markii ra'iisul wasaarihi uu arkay laftigiisa in hangalay oo laga yaabo inuu rabo inuu la tartamo oo doorashada ka qayb galo waatii uu gaaday oo maxaa ku raadayay sida sharci darrada ah oo xukunka uga tuuray marakan farmaajo waxa uu leeyahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa inay ka wada shaqeeyaan danta guud oo aysan noqon dad dangaar isugu yimaada marka danta guud laga shaqeynayo madaxweynuhu waa inuu keeno qof isaga ka fiican ma aha inuu keeno qof isaga ka liita oo uu isleeyahay macnaha danahaaga gaarka ah buu ku fulinayaa oo adigu wuxuu noqonayaa gacan yare ku adeega bal waa kan isagoo ka hadlaya waxa isiri tolo roob loo ogaa inuu keenayo waa kan isagoo amuurta ka hadlayay ila dhuuxa haddii ninka madaxweynaha uu barnaamij ku keeno dan guud waa inuu keeno qof ka fiican maaha inuu raadiyo qof xun ama qof liito inuu keeno maaha malaha ninka uu ka hadlaya waa Roblede cid kale ma aha farmaajo waa nin aad u cajiiba waxaan la soconaa in uu markuu ra'iisul wasaare khayre eriyay muddo 3 bilood mise 4 bilood ay ku qaadato inuu ra'iisul wasaare soo magacaabo inta wuxuu doonayay qof isaga gacan yaro ah qof aan hadal ku soo celin qof ma yeera ah qof maxaa ku raadayay uu isagu wuxuu u diro maahe aan wax kaleba maxaa ku raadayay maskax kaleba la iman aragti kala xambaarsanayn wuxuu ummadda Soomaaliyeed kala soo dhaxbaxay Roble oo maalin xataa war dadka Soomaaliyeed waxa kaama istaahilaan kaama geeyane warkada maxaa ku raad hal maalin aan oran marka farmaajo de isaga iska hadlayay ra'iisul wasaaruhu keenayo marakana waxa uu ka hadlayaa wada hadallada u socday xilligii uu musharax ahaa Soomaaliland iyo dawladda federaalka oo meel fiican marayay oo maxaa ku raad Xasan Sheekh dawladdiisii iyo Soomaaliland muddo 10 jeer ka badan bay kulmeen sidoo kale Sheekh Shariif oo bilaabay dawladdiisa iyo Soomaaliland
muddo 10 jeer ka badan kulmeen aadna waa la isugu soo dhawaanay isagoo arkay in aad isugu soo dhawaanay Farmaajo wuxuu yiri isagoo isla libinta adigu qaado wada hadaladaaba waa soo dhameynayaba ana dhameynayaba bal waa kan eega waxaan kaloo rabaa inaan dhameystiro wada hadalada u dhaxeeya walaalaha Soomaaliland iyo dawladda dhexe Soomaali waa dad waala ah ma kala maarano wixii ku dhaca annaga nagu dhaceen wixii annaga nagu dhacana waa naga naxayaan waa isu baahannahay iska dhaaf inuu Soomaaliland uu maxaa ku raahdaayay wada hadaladeedii dhameeyo kuwii socday buu si amba qaadi waayay waxaan la soconaa inay gabi ahaanba istaageen wada hadaladii dawladda federaalka iyo Soomaaliland u dhaxeeyay hal mar oo Djibouti la isku arkay iyo hal mar oo xafiiska abay ay isku salaameen oo si maxaa ku abay isugu soo galiyay maahay in aan wada hadal kale la gelin baan la soconaa waxna tijaara la keenay sidoo kale Soomaaliland oo uu amaanayay waxaan la soconaa inuu cunaqabateen badan saaray oo dhaqaale badan uu ka xanibay taasina ay keentay inay Soomaaliland ay sii fogaato halka madaxdii ka horeysay ay Soomaaliland wax badan u fududeyn jireen si ay midnimada iyo walaaltinimada ugu muuqato macaankeeda loo tuso oo mar kale ay ugu soo dhiiradaan u aaminaan inay dadka Soomaaliyeed wax ula qaybsadaan oo dawlad ula dhistaan iska dhaaf inuu Soomaaliland soo xirigeliyay maamul goboleedyadii isaga doorashadiisa maxaan ku rahaa qaybta ka ahaa caleema saarkiisa joogay la shaqeynayay ogolaa qaybo badan oo kamida maanta ma ogola waxaan tusaale inoo ku filan Jubbaland iyo Puntland iyo isagu meesha kala taagan yihiin sidoo kale maamul goboleedyada kale tana dadkii shacabka ma rabaan laakiin waxa uu dhakada ka keenay oo uu dhiibtay niman caloosho u shaqaystayaal oo isaga maxaa ku raahdaayay tiisa ka shaqeynaya oo dadkooda waxa ay doonayaan iyo dareenkooda aan ka turjumaynay isaga kadeedan oo isaga shaqeynaya marka maamul goboleedyadii iyo dawladda federaalka si kala fogaaday xagee joogtaa Soomaaliland oo awal bataagneed anagu waan goosanay arimahaas waxay ku cadeynayaan Farmaajo inuusan hal run aqoon inuusan hal ballanqaad oo uu galay uusan ka soo bixin haday jirto ballanqaadii uu ka soo baxayna ay ka badan tahay inta uu beeniyay oo uu ka soo bixi waayay marka waa marxaantiga nool isagu marxaanti uma baahna cid kale in loo doono ma baahna kaliya wuxuu u baahan yahay hadaladii hore uga tagay in dib loogu daaro oo loo dhageysiyo saasaan leenahay dad badan oo waxa jira iska taageersan oo qabyaalad ku taageeraya waxa loo baahan yahay qofka bini'aadamka ah adu uurkiisa kuma jirtid waxa ku taageeri kartaa oo ku xukumi kartaa waxa afkiisa ka maqasho hadda waxaan idin soo bandhigay isagoo leh maxaa ku raahdaayay ku darsan maayo waxaan maanta markanahay inuu si sharci daraa 2 sano ugu darsaday 2 sano inuu si sharci daraa ugu darsaday shalayna wuxuu lahaa ku darsan maayo ku darsashadu waa waxun marka afkiisa iyo dhigihiisa isma maqlayaan miya ninkii shalay ku darsada nabca oo diidayay oo ka digayay ninkan maanta ku darsaday isagoo ummadii Soomaaliyeed aan kalsooni ka haysan la qeylinayo madaxdii diidan tahay beesha caalamka ku yaaban tahay soo isaga maaha marka qofka waxa lagu xukumaa wixii aad ka maqasho iyo wixii aad ka aragto waxaan ka aragnay oo ka maqalnay in ficilkiisa iyo hadalkiisu aysan isqabanayn inuu isagu istuqeynayo oo kelmadii hore uga tagtaba maxaan ku raahdaayay ficil ka duwan uu la imanayo marka waxaan idin soo bandhigay maaha anigu waxaan falkiyay maaha anigu waxaan jeeb kala soo baxay waa hadallo uu isagu hore u yiri oo record u yaal baa dib u soo saaray marka Farmaajo ninkii rabay inuu si fiican u barto waxa loo baahan yahay waddankan in ay doorasho ka dhacdo oo dadku ay doortaan ciddii ay oran karaan masiirkiina ku aamin kartaan oo dawladnimada bay sii dhisi kartaa oo waddankan horumar bay gaarsiin kartaa laakiin marnaba dantu kuma jirto in xafiiska la iska sii fadhiyo Farmaajo hadduu kusiga u macaansaday oo jacayl badan uu u qabo ragii isaga ka horeeyayba waa jeclaayeen inay sii joogaan laakiin waxay ogaayeen inaan dadka Soomaaliyeed aysan ka yeeleen waxay ogaayeen haday muddada ku darsadaan oo filla Soomaaliya sii fadhiyaan inay taasi horseedayso burbur iyo dagaal sukeeyay iyagoo dadka iyo dalka u turaya bay doorasho u qabteen oo cid markaa la dooranayay ay xukunka ku wareejinayeen isagana intii baa laga rabaa hadduu doqoninoobo oo intii uu seego waxa imanaysa waxa hadda taagan oo ah dadka inay kala aamin baxaan in maanta
xabadda la isu haysto in maanta waddankeennii xataa caalamkii uu ka yaaban yahay oo laga cabsi qabo in dagaal sukeeyo uu ka qarxo waa ninka Shiine Culeyha oo kule wartani waa tii la sii share gareyn jiray fiidiyoga sii share garay oo la wadaaga asxaabtaada janaalkayga haddaa ku cusub tahay subscribe saar page-kayga follow soo dheh like tiyo comment-gana soo badi bahala iga dhintay tan iyo inta barnaamij kale ku kulmi doono waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh